komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday in doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranku labadaba la wada qabto 13 November 2024 in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ay kaliya ku tartamaan murashaxiinta saddexda xisbi ee ucid kulmiye iyo wadani in doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka ay ku tartamaan saddexda xisbi iyo 10 urur siyaasadeed ee ay gudida diiwaangelinta ururada siyaasaddu u soo gudbiyeen komishanka doorashooyinka qaranku sidaa darteed maanta oo taariikhdu 20 tahay bishii afraad 2024 waxa komishanka doorashooyinka qaranku sidoo xeerku xeer 91/2023 dhigayo aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u gudbinay warqadii caymaada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha ku-xigeenka iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka si uu madaxweynuhu uga gudto waajibaadkiisa qaran waxaanu kala faraynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan doorashooyinkaas waxaanu rajaynaynaa insha Allah daneeyaasha doorashaduna inay ka qayb gali doonaan lana shaqeyn doonaan mishanka si aynu doorashadaasi ay noogu qabsoonto hadii ilaahay ka dhigo Allah mahadle